assalaamu calaykum waraxmatullah. dhulka aan ku noolnahay meesha nagula dhalay nagulana aasi doona nagalana soo saari doono. halkan waxaan kugu soo gudbinayaa macluumaad ku saabsan dhulka aan ku noolnahay. dhulka waa kowkabka saddexaad ee ugu dhow qorraxda markii laga hadlayay kawaakibta lagu magacaabo kooxda qorraxda ee ku hareeraysan ama ku gadaaman qorraxda. waxaa ka horreeyay keliya dhanka qorraxda ka xiga labada kowkab ee lagu magacaabo cutaarid iyo zuhra, kan saddexaadna waa dhulka. cilmi ahaan waxaa la ogaaday in haddii dhulka qorraxda uu wax yar ka fogaan lahaa qabow daran oo nolosha mustaxiil tahay uu ahaan lahaa. sidoo kale haddii uu wax yar u dhowaan lahaa uu noqon lahaa foorno aad u kulul oona lagu noolaan karin. waa sida ka jirta labada kawaakib aan soo sheegnay ee qorraxda u dhow oo darajada ama kulaylka u gaaraya wax ka badan 600 oo digri. waqti sii horreysay ayuu ruushka dayax gacmeed ku dejiyey kowkabka zuhra oo ah kan labaad ee qorraxda u dhow. 2 daqiiqo keliya ayuu dayax gacmeedkaas ku milmay oo sidii baraf qorrax la dhigay oo kala noqday kulaylka meesha ka jira dartii. ilaa hadda inta bini'aadamku cilmigiisu gaarsiisan yahay dhulka waa meesha keliya ee lagu noolaan karo kawaakibta inta la arkay. noloshu waxaa udubdhexaad u ah helitaanka hawo la neefsado, heer kul dhexdhexaad ah iyo biyo la cabo. intaasna dhulka waa laga helaa ilaahay mahadiis. dhulka waxaa ku nool malaayiin nooc oo nafley ah oo bini'aadamku ku jiro, waxaana mustaxiil inay ku noolaadaan kawaakibta kale xitaa kuwa dhulka u eg sida kowkabka almariikh ama mars oo ah mid aad u shabaha dhulka oo leh buuro aad u waaweyn, togag, bannaano, laakiin aanan lahayn hawo la neefsado. dhulka waxaa ku gadaaman hayndaab ilaalin ah oo allah u sameeyey kana ilaaliyo waxyaabaha hawada fog ka soo duulo sida kuwaykibaadka yaryarka, shucaaca sunta ee iftiinka xooggan watay qorraxda hawada ku sii dayso. dhulka waa kowkabka keliya ee leh heer miqnaatiisi ama majaal miqnaatiisi magnetic field oo ka ilaaliyo shucaaca dilaaga ee qorraxda hawada ku sii dayso. sidoo kale badka guud ee dhulka, bad iyo bari waa nus bilyan kilomitir square ama 500 milyan. keliya 29.8 boqolkiiba ayaa ah dhul engegan ama yaabisa. inta kale ee soo hartay 70.2 boqolkiiba waa bad oo biyo ayaa fadhiyo. wadamada caalamka ee dhulka inta engegan ku yaalo ilaa 200 oo dal ayay gaarayaan. waxaa ugu badweyn ruushka oo ku fadhiya bad dhan 17 milyan kilomitir square. qorraxda aad arkaysaan aad iyo aad ayay dhulka uga weyn tahay, heer ay awooddo in 1 milyan oo dhul ay dhex galaan ama ay qaado. dhulka iyo qorraxda haddii la isbarbar dhigo si aad u fahanto, albaabka gurigaada waxaad hoos dhigtaa mir yar, kadibna fiiri xajmiga u dhexeeyo albaabka iyo mirta. mirta yar waxay noqon kartaa miraha yaryar ee madow ay ku dhex jiro qaraha. dhulka culayskiisa waxaa lagu qiyaasaa 10 us 24 lagu dhuftay 5.98 kilogaram, ama hal dhanka midigta ay ka jiraan 24 eber waa sabtalyuun kilogaram. waa waxaanan caqliga geli karin. dabcan waa qiyaasaad ma jiraan ama miisaan la saaray dhulka oo lagu qiyaasay. waxyaabaha dhulka uu ka samaysan yahay 32 ku dhowaad boqolkiiba bir, 30 wax ku dhidhow boqolkiiba oxygen, inta soo hartay silicon, magnesium, kibrit, nickel, calcium iyo aluminium. dhulka sanadkii waxaa soo mara 4 xilli oo cimilada dhanka roobka, kulaylka iyo qabowga kala duwan yihiin. xilliyadaas oo kale ah xilliga guga oo ah xilli roobaad, xilliga xagaaga, xilliga dayrta oo sidoo kale ah xilli roobaad, iyo qorraxeedka ama xilliga qorraxeedka. la socoshada xilliyada dhulka waxay kaa saacidaysaa inaad ogaato xilliyada roobka, kulaylka iyo qabowga, iyo dhanka ama jihada ay dabayluhu u socdaan. dhulka aan ku noolnay wuxuu leeyahay dayax raacsan oo masaafo ahaan aanan ka fogeyn ilaa 350,000 kilomitir. masaafo dhan ayuu dayaxa dhulka u jiraa. waa 3 maalin intii ay jiraan dayax gacmeedyada. faa'iidooyin badan ayuu dayaxu u leeyahay dhulka, uguna muhiimsan tahay in habeenkii wax lagu arko iyo arrimo la xiriira waqtiga, gaar ahaan daqiiqadaha iyo weliba dhaqdhaqaaqa biyaha badda. 1965tii midowgii Suufiyeed ayaa isku dayay qoditaanka god aad u dheer si loo ogaado gudaha hoose ee dhulka iyo wax uu ka samaysan yahay. hadafka mashruuca wuxuu ahaa qodidda masaafo dhan 15,000 mitir gudaha hoose ee dhulka.
mashruucu wuxuu qaatay waqti aad u dheer wuxuuna soo gaaray ilaa 92 si rasmi ayuuna u istaagay mashruuca kadib qoditaanka 12,226 mitir waa masaafo dhan qiyaastii 7 kiiloomitir waxaan wada ogsoonahay in 1,000 mitir uu dhigmo 1 kiiloomitir sababta ugu weyn ee keentay istaagidda mashruuca ruushka waa kuleylka aadka u daran ee ay la kulmeen 180 digrii waa kuleyl aad u daran heerka ay biyaha ku falfalaan markaad shaha karsanayso waa 90 digrii maxaad u malaynaysaa marka 180 digrii waxaa sidoo kale la og yahay in gudaha hoose ee dhulka uu yahay jaxiimo aad u kulul oo heerkulku u gaaray malaayiin digrii sidaas darteed mashruucii ruushka uu socon waayey oo aaladihii Ameerikaanka adeegsanayeen ayaa u adkaysan waayey kulaylka aadka u weyn waa 7 kiiloomitir kaliya ka waran haddii la qodo 10 kiiloomitir 20 kiiloomitir 30 kiiloomitir waa jaxiimo aanan caadi ahayn ilaa hadda dhulka inta la diiwaan geliyay meesha ugu kulul waa saxaro ku yaala waddanka Iiraan ama dhulka Faris oo lagu magacaabo Saxraa Luud 70 digrii darajo ah ayaa la diiwaan geliyay ilaa hadda waana meesha ugu kulul dhulka inta bariga ah waxaa loo kala qaybiyaa ilaa 7 qaaradood oo kala ah Afrika, Aasiya, Yurub, Koonfurta Ameerika, Waqooyiga Ameerika, Australia, qaaradda koonfureed ee barafku fadhiyo ama loo yaqaano qaaradda Antarctica. Qaaradahaas aan soo sheegnay waxa ugu weyn qaaradda Aasiya dhanka dadka iyo dhanka badkaba waxaa soo raaco qaaradda Afrika. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.